wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeeni maanta qodobada aan ku eegi doono waxa ka mid noqon doono muqdisho ay ka taagan tahay xaalad cankirnaan ah oo ku aadan dhulka ay boobeysa dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay ka qaadayso dadkii hore u deganaa muddo ku dhow 40 sano oo ay dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay in laga barakicinayo iyadoo aan u haynin meel ay degaan dadkaasi sidoo kale goob ay dejinayso ama dib u dejin ay ugu sameynayso xaalad cankirnaan ayaa ka taagan maanta sidoo kale waxa aan ku eegi doonaa guddiga doorashooyinka oo shaaciyay habraaca ama sidoo kale qaabka doorashada soo socota ay u dhici doonto ee qof iyo codka ee dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay ka hirgelinayso dalka dhinaca kalena dalka Mareykanka madaxweynaha Donald Trump oo dhawaan la doortay ayaa maanta xilka lagu wareejinaya qodobada ay kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena maanta ugu horeyn hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato page-ka ama YouTube-ka Amira Suleymaan fadlan follow ama subscribe hadii aad ka daawanayso YouTube-ka muuqaalka like saar share garay oo gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa dhulka loo yaqaano danta guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka barakicinayso muddooyinkii ugu dambeeyay dadiyowga ku dhaqan halkaasi ama degan ayaa sii kordhaya iyadoo dhawaan ay dawladda federaalka Soomaaliya qaaday ama sidoo kale ay ka barakicisay dad deganaa muddo 40 sano ah dhul ay lahayd dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre sidoo kalena loo yaqaano danta guud iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya dadkaasi ayna jirin goob ay ugu tala gashay ay geyso sidoo kalena hiraab ama aroor ama saq dhexe habeenkiina ay kula kalahdo cagafyo ama baawurta dudumiyo ama burburiyo guryaha iyadoo gabi ahaanba cagaf mariso ama baldoos mariso halka ay dadkaasi degan yihiin iyadoo aan cil iyo ceed toona ay u qodneen dadkaasi halkaasi laga barakiciyay waxay maanta xaalad kacsanaan ka jirtay carwadii hore ee qaranka halka oo ay dhawaan dawladda federaalka sheegtay in dadka degan ay ka barakicinayso sidoo kalena dhulkaasi loo baahday laguna wareejinayo dad la sheegay in ganacsato ay yihiin oo iibsaday hase ahaatee ilaa ay hadda dawladda federaalka Soomaaliya ma cadeynin halka ay dhulkaasi u rabtay hase ahaatee dadyoga careysan ayaa sheegay in dhulkaasi dawladda ay ka iibisay ganacsato iyaga ka xoog badan ka hanti badan kana dhaqaale badan iyakana ay yihiin dad masaakiin ah oo ku dhawaad 40 sano dhulkaani deganaa meel ay aadaan aysan qabin hase ahaatee dawladda ayaa sheegtay in gabi ahaanba dadkan la barakicinayo goobtii ay doonaan ay aadayaan iyadoo aan sheegin goob ay dadkaani u qorshaysay ay ku barakicinayso hase ahaatee dadka ayaa maanta cabsi xoog leh waxa ay ka muujiyeen barakicinta dhulkaasi la sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo fooleedahay sidoo kalena ay doonayso in gabi ahaanba dhulkaasi ay burburiso dad careysan oo isugu soo baxay banaanka ayaa sheegay sidoo kalena ku qaylinaya erayo ka dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba dawladda iyagoo sheegay in dad iyaga ka dhaqaale badan dhulkaani ay u burburinayso sidoo kalena ay siinayso iyagana ay hantidoodii iyo dhulkii ay muddada deganaayeen banaanka ay maanta ka joogaan iyadoo sheegin sabab ay dawladda federaalka Soomaaliya arrintan u sameynayso guddi odayaal dhaqameed ay iska soo xuleen dadka degan carwadii hore ee qaranka ayaa sheegay inay la kulmeen gudoomiyaha degmada Hodan iyagoo gudoomiyaha u sheegay inay gabi ahaanba dhulkaasi baneynaan loona baahan yahay dawladda federaalka Soomaaliya dhulkaasina ay u baahatay gabi ahaana dadkaas ala doonaya inay isaga baxaan hase ahaatee dadka ayaa ku dooday in dawladda ay sheegto sida ay u rabto dhulkaani iyo dadka ay ka iibisay sidoo kale halka iyaga ay u tala gashay inay geeyaan dadyowgan ku dhaqan muddo 40 sano deganaa oo aan qabin guri ay haatan sii degaan amaba iska bixin karin kirada ay guri ku sii kiraysan lahaayeen oo ay ku gaaraan guri iyaga leeyihiin odayaal dhaqameedka oo hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha uusan su'aasha ugu jawaabin hase ahaatee uu sheegay in amar degdeg ah ay dhulkaasi ugu guuraan gabi ahaana ay baneeyaan dhulkaasi dadka ayaa sheegay in dhulka ay og yihiin inuu yahay dan guud sidoo kalena ay iyaga shakhsiyan u lahayn hase ahaatee ay muddo deganaayeen sidoo kalena ay ugu bixi karaan in dawladda federaalka Soomaaliya maadaama ay dawladoodii tahay ay dib u dejin u sameeyso sidoo kalena ay siiso goob kale oo ku meel gaar ah si ay u sameystaan guriyana ay ugu dhistaan magaalada Muqdisho hase ahaatee aysan qabanin marnaba in habeen saqdhaxa lagu soo kalaho dhulkii in loo dumiyo sidii dhulkii dabdamiska ama xirakaluun in saqdhaxa lagu soo kalaho sidoo kalena gabi ahaanba la burburiyo sidoo kalena la geliyo cagafyo iyo baawurta waxyaabaha burburiyo sidaa darteedna ay cabsi xoogan ka qabaan in arrintan ay iyagana ku dhacdo dadka ayaa sidoo kale sheegay inay ka xanaaqsan yihiin qaabka ay dawladda federaalka Soomaaliya ula dhaqmayso dhinaca kale guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa shaaciyay xilliga doorashada qof iyo codka Soomaaliya ay dhacayso guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa la wadaa inay shaaciyaan maanta xilliga ay dhacayso doorashada qof iyo codka ay dawladda federaalka Soomaaliya shaacisay dhamaan warbaahinta ayaa goobtaasi la sugu yeeray iyadoo la sugaya in lagu dhawaaqo xilliga
loo asteeyay inay dhacayso sidoo kale loo qorsheynayo doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacayso Soomaaliya sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay gabi ahaanba doorashadaasi dhici doonto sidoo loona dareerayo doorasho qof iyo cod ah dib dambana aan looga laabi doonin xeradii Efesiyoni ama baarlamaan soo doorto madaxweynaha hogaami doona 5 sano ee soo socota Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaabkan ay u wado dowladda federaalka Soomaaliya hanaanka doorashada ayaa waxa gabi ahaanba qaadacay kana soo horjeestay madaxda mucaaradka ay ugu horeeyaan madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale qaar ka mid ah baarlamaanka iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah nin u tartamay xilka madaxweynaha sanadii ama xil doorashadii ka horeysay madaxweynaha haatan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud أنا كقول إذن هساعتي هاتن معارض وين كنا سهر جيدا قابك أي دولة فدرالك Soomaaliya u dhigayso doorashada ama ay doonayso inay u dhacdo doorashadan hasaatay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa in gabi ahaanba ay dhacayso doorasho qof iyo cod ah sidoo kalena aan dib looga laaban doonin xeradii Efesiyoni ama waa laga gudbay xilligii baarlamaan uu soo dooran lahaa madaxweynaha hogaamin doona dowladda federaalka Soomaaliya ama qarankan Soomaaliya dhinaca kalena dalka Mareykanka ayaa waxa maanta lagu wareejiyay madaxweynaha cusub ee Donald Trump ee dhawaan loo doortay bishii November ee sanadii tagtay ee 2024 madaxweynaha cusub ee Donald Trump ayaa xilka maanta oo ay tahay 20 bisha January ee sanada 2025 waxa la filayaa in lagu wareejiyo xilkaasi la filayaa inuu hayo muddada 4 sano ee soo socoto dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa ahaa mucaarad weyn sidoo kalena u ololeeyay ajnabi naceebka islaam naceebka iyo sidoo kale isagoo ahaa xigjir weyn ama kuna fog sidoo kalena waxa uu ku caan baxay taageeradii uu ku taageeray Israa'iil inay duqeyso halkaasi Gaza halkaas ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamij wareedkeena aad kala socotaan YouTube-ka Amir Suleymaan fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe leh muuqaalka like leh share garay oo gaarsii saaxiibadaada hadii aad inta inala soo gaartina muuqaalka gabagabadiisa aad iyo aad ayaan ka mahad celinayaa nala soco mar kasta oo rukumo barahayga bulshada